بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام أصحاب تلمانتين ملك استوديو أنك جوكتين عيد مبارك من العايدين ومن الفايزين إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير ما أنت حرمة إن شاء الله إن إذا فائديو إن قنبها سيد سليد قنبها الشيدن أو قلالان لوغ صوب حسو سليد ديس إيو عانيهيس إيو إن قنبها مركز إن سيدي باودر كالوغا ديكتو يعني بور كالوغا ديكتو waxaa kaloo idin sheegayaa faa'iidada badan oo qumbaha ka buuxo dhinaca qurxinta wajiga iyo timahaba yani faa'iidooyinka badan oo ka buuxo fitamiinaadka timaha wuxuu u taro iyo skinkaba wuxuu u taro qumbaha yani videogeena maanta waxaa sir iyo faa'iidooyin marka waxaa idin leeyahay asxaabta ka faa'iideysta insha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin aad idin soo dhaweynaya gabdhaha ku cusub channelka waxaa idin leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada channelkiina waaye subscribe ka taabta gambaleelkana on ka dhigta si fiidiyoyaasha cusub oo aragtiin insha Allah asxaabteena hore noola joogtana waxaa leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin videoga like dhaha share gareyn asxaabteena u share gareeya like tana hilmaamina insha Allah videoga like badan noo saara aad iyo aad aan kaga mahadcelinaya dhamaantiin soo dhawaada marka asxaabteeda qaaliga ah marka hore waxaan tusinayaa asxaabta sida qumbaha oo qaleelka ah oo dukaamada lagu gado caadiga ah sida saliida organic ah looga soo baxsado iyo caanahaba waxaa kale oo nooga soo baxay asxaabta qumbahaas burka oo qumbaha marka saddexdaas shay aan ka soo baxsanayna yani saliida qumbaha iyo caanaha qumbaha iyo qumbihi oo shiidayna oo qalajinayna markaas kadibna oo noqonayo burka oo qumbaha intaas aan ka sameysana insha Allah hadii aad helaysin qumbaha freshka ah saan oo kale u sameysan kartiin aad iyo aad u fiican yahay hadii laakiin aad helaynina oo qumbihiina uu yahay qumbaha caadiga ah oo qaleelka ah oo dukaamada lagu gado saan u sameysanaysin asagana aad iyo aad u fudud yahay ma sha Allah saliida aan ka helaynaa waxa waa saliid organic ah sidoo kale waxaan ka helaynaa caanihiisa iyo burkiisaba yani ma sha Allah saliidana waxa waa wajiga iyo jirka oo dhan loo isticmaalayaa sidoo kale waxa loo isticmaalayaa timaha caanahana maskaadka loo isticmaalaa maskaadkan ku qasaneynaa maskaadka timaha iyo maskaadka wajiga iyo jirka waa loo isticmaalayaa caanaha burkiisana waxa waaye sidoo kale maskaadka loo isticmaalaa ma sha Allah wax la iska heli karo ma aha asxaabta kan freshka ah hadii aad helaysiina kan qaleelka ah ka saabka si fiican ba ma sha Allah marka haddana waa bilaabaneynaa insha Allah soo dhawaada marka hore qumbaha qasaneynaa qumbahan waxa ka isticmaalayaa 3 bakeeri caaga isticmaalaya asxaabta bakeeri oo dhigmaa waxa waaye caaga oo cabirka 3 bakeeri oo qumbaha isticmaaleynaa hadda 2 bakeeri aan ku soo shubtay bakeerigan waxa waaye bakeeriga saddexaad 3 bakeeri oo waxa waaye qumbe ah waxa ku qasaneynaa 3 bakeeri oo biyo ah biyahan waxa la rabaa inay ahaadaan biyo aad u kulul biyaha si fiican u soo kareen 3 bakeeri oo biyo aad u kulul ah haddana waa qasaaya si fiican oo qasaaya kadibna waa daboolaya waxa u sugeynaa ilaa 4 saac yani markii ay noo qaboobaan kadib markaas isticmaalayna insha Allah haddana asxaabta qumbihi waxa u sugnay ilaa 4 saac waa soo qaboobay hadda markuu waxa sameynaya waa shiidaya qalaadadan ku shiidaya si fiican u shiidaya marka laazim si fiican in u shiidno waa si aan u helno saliida iyo caanahaba yani qumbaha inaan ka soo baxsano waaye saliidiisa iyo caanihiisaba si fiican markaan u shiideynaa hadda waa miiraya si fiican oo miiraya laba qayb ay kala noqonayaan qaybna waxa waaye qaybta qoyaanka ah qaybta kalena qaybta oo qumbaha waaye qumbaha waa qalajinaynaa yani dib u qalajinaynaa kadibna waa shiideynaa wuxuu noqonayaa burkii oo qumbaha qaybta qoyan waxa nooga soo baxayo caanaha qumbaha iyo saliida qumbaha labadaba yani saliida iyo caanahaba qaybtan qoyan aan ka helaynaa qaybta kalena waxa waa qaybta aan qalajinayna oo burka aan ka helaynay ma sha Allah waxa waaye 3 fi 1 waaye ama 3 shay oo hal shay isku ah waaye saliida qumbaha caanaha qumbaha iyo burka qumbaha saddexdooda waaye ma sha Allah wax la iska heli karo ma ahan
hadda waxaan sameynaynaa marka asxaabta in qaybtan qoyan oo saliidii caanaha iskugu jiro waa dabooleynaa talaajadan gelinaynaa talaajada korma la gelinaa talaajada hoosa la gelinaa marka talaajada waxay noogu jiraysaa habeen kaamil maalintii isla arkaynaa markaas say noqoto qaybtan kale oo qumbaha ahna saxna lagu shubayaa waa la qalajinayaa iyadana ilaa ay si fiican uga qalalayso u sugaynaa marka saasa sameynaynaa qaybta qoyan habeen kaamil aan sugaynaa sidoo kale qaybtan kale oo qumbaha banaankan dhigaynaa saxna ku shubaynaa iyadana waxaan sugaynaa ilaa ay ka qalalayso si fiican uga qalalayso marka insha Allah bari aan isku soo noqonaynaa haddana waatana asxaabta qaybtii oo qoyaanka aheeday oo saliidii caanaha iskugu jirtay habeen kaamil talaajada noogu jirtay marka way kala degtay hoos waxaa fadhiistay caanihii korna waxaa soo kormaray saliidii marka way fadhiisatay waxay noqotay sidii oo subaga camal ay noqoto waa fadhiisatay yani sidii zibdada camal ay noqoto ama batarka hadda waxaan ka qaadayaa qaybta kore oo subaga noqotay si tartiib ah uga qaadayaa hoos waxaa noogu haraya caanaha korna waxa waay saliidi way oo qumbaha oo yani fariisatay oo noqotay sidii batarka camal si tartiib ah uga qaadaynaa caanaha marka qumbaha waa kana asxaabta ما شاء الله عن هذا انت صنوق صباحدي يعني لو بكيري ودق ما دلداني توت لو بكيري او waxaa noogu soo baxday oo caanaha qumbaha saliidna waatana asxaabta hadda sameysanaynaa saliidda waxaan ku sameysanaynaa dab aad u gaaban dabka aad iyo aad in loo gaabiyo waaye marka si tartiib ay noogu karaysaa saliidda laazim in la walaaqana waaye si fiican in loo walaaqo si yani ay hoos u qabsanin la inoo caanaha soo raacay oo qumbaha waatana haddana saliid diyaar ay noo tahay maasha Allah dab gaaban ay noogu soo kartay markaad waxaa meesha aan ku haysanaa caanaha qumbaha iyo saliidda qumbaha yani saliidda waxaa waaye dabcan saliid organic sidoo kale caanaha waataasa saliiddii maasha Allah saliid waxaa waaye aan u isticmaalayno wejiga timaha iyo jirka oo dhan saliid organic waaye oo gurigaaga aad ku samaysatay oo hubtid maasha Allah gasacan waxaa noogu jiro qumbihii oo soo qalalay oo si fiican u qalalay kadibna oo shiidnay oo si fiican u soo shiidnay waxa waaye burkii qumbaha waaye saddexdooda marka qurxintaan u isticmaalaynaa caanaha waxa waaye waxaa loo isticmaalaa maaskaadka lagu darsadaa timaha aad u jilciyaa saliidan dhamaanteen waa naqaanaa saliid organic waaye marka suuqa aad tagtid oo saliid organic aad soo gadanaysa dabcan qaali waa wada naqaan dhamaanteen burkane maasha Allah asna maaskaadka loo samaystaa maaskaadka jirka wejiga timaha loo isticmaalaa loo samaystaa ما شاء الله تبارك الله ألعاب وحواي عجيبة أصحابته هذا نوع إدين شيء يا أصحابته إن سريد قنبها إعانها يعني فائدة يمكن كبوحه إن تمه إن له استعماله يجرك أردن استعمال كسر له استعمال سريد قنبها آدي وفربدين إن شاء الله فيديو كلا إنك كسر سمينا هذا لكن نوع إدين شيء يا سكين كوحه أطرق يتمها بو ما شاء الله فوائد كبوحه فيتامينات كبوحه هذا إدين شيء إن شاء الله إنك فائدين يا marka hore waxaan ku bilaabaneynaa skinka wajiga wuxuu u taro iyo jirka oo dhan yani skinka wajiga asxaabta waa ratibaya maasha Allah si fiican u ratibaya wajiga waa qoynaya hadii wajigaaga uu qaleel yahay aad iyo aad uu ku anfacaya yani aad ku anfacaysaa in saliidda qumbaha sidoo kale wajiga saliidda leh oo nabraha leh saliidda qumbaha saliidda loo isticmaalo waay maasha Allah bakteeriya ka dilaysaa finanka ka yareynaysaa yani saliidda qumbaha wajiga saliidda leh waa loo isticmaalaa waa la mariyaa waa lagu masaajeeyaa maaskaadka lagu darsadaa aad ku anfacaysaa hadii wajigaaga uu yahay wajiga oo saliidda leh oo finanka leh la inuu saliidan waxa waaye in bakteeriyada wajiga ka dilaysaa sidoo kale wajiga oo saliidda leh oo finanka leh cilaaj ay u tahay daawi u tahay wajiyaasha dhan loo isticmaalaa wajiga qaleelka wajiga saliidda leh wajiga mukhtalidka isku darsan wajiga caadiga wajiga xasaaska yani waxa waaye saliid oo mutahhir oo muqaqim oo yani wajiga bakteeriyada ka dilayso saliid waxa waaye wajiga lagu masaajeeyo oo wajiga ka ilaaliso in yani tajaacid oo galo ama laablaab oo galo yamiin iyo waxyaalahaas oo galo aad ugu fiican tahay yani hadii wajiga lagu masaajeeyo wajiga baby ka dhigaysaa maasha Allah waa yareynaysaa wajiga vitamin E badan ay leedahay asxaabta ka buuxo saliidda qumbaha vitamin E na waxa waaye vitaminka quruxda sidoo kale waxay leedahay omega 3 maasha Allah tabaaraka Allah saliid waxa waaye cajiib oo munaafacaad badan leh marka isla ogaada idilay asxaabta qaybta oo timahane aad iyo aad timaha u qurxisaa
timaha waxay u xafidaysaa borotiinka yacni waxay xafidaysaa borotiinka timaha sidoo kale timaha cilaajay u tahay waxay ka ilaalisaa go'itaanka timaha waa qoynaysaa timaha qaleelka aad ugu fiican tahay timaha khafiifka ahna quwaday siisaa way badinaysaa xoogi u yeelaysaa timaha khafiifka ahna wayna dheeraysaa timaha maasha allah waxay ka ilaalisaa go'itaanka timaha go'aaya tasaaqud kale hoos kasoo siibmaya saliidda qumbaha aad iyo aad ugu fiican tahay timaha oo daciifka aad ugu fiican tahay tintaada haddii ay daciif tahay saliidda qumbaha isla ogow la inna tinta daciifka ah waxa way quwaday siinaysaa xoogi u yeelaysaa waxay kale u fiican tahay aflaaqadan ka hortagay u tahay ama timahaaga haddii aflaaqa ay leeyihiin aad iyo aad kaaga saacidaysaa yani tinta waa qoynaysaa ratuubay siinaysaa maasha allah sidoo kale jileecay ka dhigaysaa waa madoobeynaysaa wayna bixisaa way dheeraysaa timahana aad iyo aad u fiican tahay sida hadda usoo sameeyna haddii aad u samaysatiin maasha allah saliid waxa waaye organic ah timaha aad iyo aad kuugu anfacaysaa yacni caadi ahaan marsanaysaa si toos u isticmaalaysaa maalin kasta isticmaali kartaa saliidda kale oo baarashuudana maaskaadka u isticmaalaysin sida hore idin kugu sheegay oo idinku dhahay saliidda markay organic ay tahay timaha maalin kasta la isticmaalaya saliidda caadiga ah tan kalena baarashuudkana waxaa idin kugu sheegay in maaskaadkan u isticmaalno tan baarashuudkana asxaabta dabcan waxa waa saliid caadi ah oo caadi ahaan loo isticmaali karo oo si toos loo isticmaali karo laakiin waxaa kasii fiican markay organic ay ku tahay organicana waxa haddii guriga saana ugu samaysatiin maasha allah saliid waxay idin noqonaysaa kaal iska arag oo raqiis ah haddii organic ay helaysiin oo organiga oo jaahiska ahna maasha allah aad iyo aad inay anfacaysaa aad timaha ugu fiican tahay timaha iyo jirka oo dhan waa idin anfacaysaa maasha allah ilmaha yaryarkana saliid waxa waaye oo aad u anfacayso xataa ilmaha aadka u yar waa loo isticmaali karaa saliidaanitood oo qumbaha ah marka waxaan idin leeyahay ka faa'iidaysta isticmaala sidoo kale caruurtiina u isticmaala maasha allah saliid waxa waaye mufiid jiddan aad iyo aad u fiican fawaa'id badan oo ka buuxo waxaan idin leeyahay ka faa'iidaysi wacan aad iyo aadaan u mahadsantihiin aadaan kaga mahadcelinaya daawashadiina quruxda badan iyo la socodkiina insha allah waxaan ogolan videoga dambe waxaan idinkaga tegayaa khayr badan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu